هذه هذا ما سنتين يفلسطين كل ما سنتين هذه فريستا وما سنتين فريستا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك قضال عاوة وأمين آدي وين وآدي قيمة بدن ضدك الصوماليين الدقل مقالة مينيسوتا مقالة يكون دو آدي يديكم هاد علينا قدرنت إيسو دوينت هي فرحة هي قلب سمانتا الموجودين هي صومالي لماذا أنت رواكم هاد علينا أنت أسكي قدال آدي أفعل إن ما مدن إنتان إذا لجوغنو aan maxaan ku yiraahdaa gurihiina iyo maqaayadihiina iyo aan idin la wadaagno idin la tago aad u fiicnaa waan jecelnahay runtii ilaahay idinkiisa waan yeeli doonaa haddii aan la yiraahdo sidaas laakiin hadda waqtiga aad iyo aad ciriiri noogu ahaa awgeed ayay sabab noqotay inaan caawa annagoo caawayna ka nimaado haddana aan sii cararno waad garanaysaan dalkan occasionka weyn ee ka soo socda ee calaamisaarka muxuu ahay madaxweynaha president obama فرصداس وين حتى وان سوق كري ويني برشلونة كلام هايست أول وحنو دقيقنا وعمدان صومالية مال أكيد جرتوا عالم ككمدة إن أنا فرصة صومالية دي جرت أنا كل فين وأنا عذر دار اللي بدعونا وأنا قاعد بري مركا مهمة إنه لا داعينا من صوت الماضي وحدري له أيضا عدد سكاسي برشلونة صورنا إن هايستان هذانا إن دعنا وإن صوت على ويران وأنا نعش صوت علىنا سي أنا محاكم هذا أنا موجنا فبنتان كين يوحى قلبي إنه كجرا يصير أنا نجعلنا عارف أنت أسكتي هذا دب واحد من صوماليا wadada oo aad u fog ayaan soo marnay wadadaasi aad uma wada fuuleen soo maristeedii mana qurux badnayn runtii laakiin khasaara waxay ahaan lahayd haddii aan wax laga baran maanta waxaan idin sheegayaa wadadaas dheer oo soo marnay inaan wax ka baranay dadkeenna ay wax ka barteen dalka joogay kuweena dibadda jooga adinka aad ka mid tihiin oo sidaad isu jecel oo isu imaanay ay wax ka barteen آدي إن أقدرنا هاي ما تشري أيها وحتى الفائدة ممكن أن نسوق بكنا تذكر إنه ما أنت وحيد جوجان إيجار الدقات كأن يسوق قاتان أو ويا لماذا حكمة تيس أدوير وصدح معلومات وشري أو صوت عفين ما أنت أول الجوجا يبري صدح راسم أدوير كقوتها شري وأنا رتكتي نقوم صون نقريسو وحيلها هاي هناك جد الكل ووحكة برشة وحي نركب دمي الشري إن أنا ما أنت نركب دمي وحي نروح جاي الشري إن أنا نرفق كان هنسيح الجنوب وهنسيح هربانه ما أنت إن أنا أدي الدرون أنا وعشر كاس قاعدة بالري سيدي أبوسي قرحين لهين ضدك الصوماليين إنت عسين ما أنت كرتين أيضا وحوى البابا يعني نمري شغل مصرين أيضا أيها ما أنت وضع الصد إلا بفره وحو الصد إلا بالله دولقات بدل لموجيو برير اللو ديار قرون نينك كم مشغول سن شري غير هلواتين الديرين واتينا لبركعين واتي دارهن اللقوي واتي بابورتنا لقد عين واتي ساسنا ريالي كفقر أي ولي كدكن بريا دافس بري أو مستقبل كائن من داخلين ديارنا عكفك إن مركا محوها بقدر أسبوع لبلنا أساس عطى إلى كم مشغولو وحنا لها اللاعي وحي أن عفيك إننا نعفنه وحي أن عفيك إننا وحاولنا حار نظام يقاب
iyo shuruuc casri oo dowladnimo inaan kuwa ayagana aan muxuu ahay aan ku salayno laakiin aanan isqabqabsi iyo isjiid israaracun aanan ka shaqaynin dulqaad dowladnimo qurxan soomaaliya degan oo mid ah oo sharaf badan leh soomaaliya qiimiyay leedahay u baahan in la bixiyo there is a price to pay in order to get that good Somali price kaasi beesa ma ahan maxaan ku yidhahdaa dahab ma ahan wax kale ma aha price kaasi waa dulqaad iyo isjacayl inaan isu dulqaadano iyo inaan isjeclaano waa price-ka aan ku heli karno Soomaaliya qurux badan oo maxaan ku yidhahdaa si aan rabnay iyo wixii aan ka rabnay iyo wixii aan shalay soo aragnay quruxda badnaa inaan dib u helno maanta Soomaaliya shalay way ka fursad badan tahay kumanaankan Soomaalida ah oo wax baratay oo adduunyo casri ah oo nolol casri ah ka jirta aragtay ee maanta doonaysa Soomaaliya sida Minnesota looga nooliyo kale in looga noolaado inay gaarsiin karto og shalay inaan qabin dhibaatadiina gaartay waxaan ku iloobi karnay ka mid tahay codka aad yeelateen iyo dalkan talada aad ku yeelateen iyo maxaan ku yidhahdaa danaynta la idin danaynayo idinka Soomaali haddii aad tihiin ayaa ka mid ah oo qayb weyn ka ahayday inay soo degdegto in aan cilaaqaadkeennii annaga iyo Maraykanka dib u soo noqdo dadka Soomaalida ee qurba joogta ee ku nool dalka Maraykanka ayaa iska lahay waana mahadsantihiin runtii dalkan booqashada aan ku nimiday dhowrkii maalmood aan joognay si aan caadi ahayn oo aad iyo aad u weyn ayaa naloo soo dhaweeyey oo aan runtii dhihi karo dalal badan aan soo booqana berihii la soo dhaafay sidaan oo kale nalooma soo dhaweeyey runtii aan dhihi karo guri kasta iyo xafiis kasta iyo golo kasta oo talada Maraykanka ay tiilay waa la geeyey Congressman Ellison hadda mid uu ka hadlayay Congresska Maraykanka ayaan tagnay dadka Congresska Maraykanka ugu muhiimsan sida uu sheegay waa short notice maanta nimada gudiyaan rabnaan dhahnay yaa uu soo kulmiyey oo inta ugu muhiimsan weliba Congresska ay ku jireen oo labada xisbiba leh waa la fadhiisanay Soomaaliya abuureedaan uga hadalnay waxay boqolkiiba boqol noo ballan qaadeen inay Soomaaliya iyo qadiyadda Soomaaliya sidii loo horumar lahaa iyo Soomaaliya sidii loo garab istaagi lahay inay u istaagayaan dowladda Maraykanka ay kala shaqaynayaan xukuumadda arrintaas waxaan tagnay White House-ka madaxweyne Obama yani sidoo kale wuxuu noo muujiyey commitment aan caadi ahayn iyo in uu xaqiijinayo Soomaaliya in ay dib caalamka ugu soo noqoto oo dowladdu weliba caalamka dhexdiisa qiimo kale inay noqoto State Department-gaan tagnay Secretary Clinton sidoo kale ayaduna waad arkayseen muxuu ahay wixii ay media ka dhahday markii aan gooni u shirnayna intaasi in ka badan oo maxaan ku raad ballanqaad ah iyo muxuu ahay barnaamijyo ay ka tegayso xafiiska markay ka tagto ay ku reebayso oo socon doona iyo dadka xafiiska sii joogayo ay muxuu ahay arrinteena ay aad iyo aad ugu bandhigtay kala hadashay intaba marka waa commitment aan caadi ahayn waxaan tagnay USAID oo iyadana sidoo kale intii ugu sarreyso hoggaanka hay-addaas oo dhan ay noo soo shireen oo ayaguna ay ballan qaadeen Soomaaliya markaan macaamilka hore macaamil ka duwan inay siinayaan muhiimaddana ay saarayaan Soomaaliya Pentagon-kaan tagnay oo inta badan aan la tegin runtii ayadana sidoo kale aadaan loogu soo dhaweeyey wasiirku uu maqnaa safar ku maqnaa dalka dibaddiisuu jiray laakiin dee madaxdii kale Pentagon-ka joogto dhan ayaa na soo dhaweysay si gaar ah baahida aan qabno ayaa u khusaysay ayaga oo amniga kala shaqayntiisa ah waxay noo ballan qaadeen inay aad iyo aad noola shaqaynayaan wax allaale wixii ay Soomaaliya u baahan tahayna ay diyaar u yihiin sida si ugu dhaqsiya badan inay gargaar istaagaan guud ahaan isku soo ururi
meeshaan waxaan ka noqonaynaa safarkan safar aad iyo aad u guulaystay asigoo ah ma aha guushiisu inay ku kooban tahay xiriirka iyo cilaaqaadka cusub ee soo noqday ee Soomaaliya iyo Mareykanka ma aha laakiin cilaaqaadkaasi soo noqday wuxuu furo u yahay meelo kale oo badan ayuu furo u yahay marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dowladda Mareykanka safaaradeedii ayay dib Muqdisho uga furaysaa annaguna safaaradeena Washington dib aan u furaynaa waxaa intaas dheer oo aan rabaa dadka reer Minnesota inaan muxuu ahaayey aan ugu bishaareeyo inaan halkaan qunsuliyad ku yeelan basha ay sadanaha muxuu ahaayey darihiina iyo isku xidhka Soomaaliya iyo muxuu ahaayey community-gan sharafta badan ee muxuu ahaayey halkan joogta marka taasna haddii aan la yiraahdo waad arki doontaan waqti gaaban baa naga xiga haddii aan la yiraahdo intaas kadib dalka waxba idinkuma seegana waad ka warqabtaan waad la socotaan muddadii gaabneed oo aan joognay oo inta badan waqtigeeda uu ku baxay dhismaha dowladda iyo institutionskii dowladda u saldhigideedii baarlamaanku wuxuu ku mashquulsanaay isagu inuu institution rasmi ah inuu noqdo oo xeerarkiisii iyo xeer hoosaadyadii uu samaysto oo guddiyadii kala duwanaa ee xukuumadda la xisaabtami lahay oo dhiso asoo sidaas ah haddana shaqada aad aragteen oo qabtay oo inuu muxuu ahay madaxweynihii doorto in maxaan ku rahdaa sidoo hadda uu sheegay wasiirka prime ministerka oo ansixiyey iyo xukuumaddiisii iyo barnaamijkeedii xafiiska markaan imida bishii September shaqada dowladeed waxaan ka bilaabnay 3 bilood sanadka ugu dambeeyay inaan budget samayno oo dowladdu ay budget ku socoto budget la'aan aanay socon baarlamaankan geeyay waa markii ugu horreysay oo budget baarlamaanka inta la geeyay laga ansixiyay ahayd bishii December intaanay dhammaanin sanadka 2013 budgetkeeda baarlamaanka marka la geeyay asigana waa la ansixiyay boqolkiiba boqol isku budgetkiinu waa yar yahay waa inta meeshaan laga badiyaa ka fiicnaa waa la dhihi karaa laakiin budget ma lihidiin sidii awal la dhihi jiray lama dhihi karo maanta intaas kadib annagu waxaan soo bandhignay aragtideenna ama visionkeena ku saabsan Soomaaliya sida dib loogu soo celinayo sida loo bilaabayo Soomaaliya dib u soo celinteeda waqti dheer ay u baahan tahay 2 sano iyo 3 sano iyo hal teeran oo maxaa xasan shaqo soo doortay kuma filna waqti dheer ay u baahan tahay laakiin dib u soo kabashadaas ama dib u soo noqoshadaas aasaasay u baahan tahay lagu dul dhiso lagu taajiyo mas'uuliyadeena waxay tahay aasaaskaas foundationskaas inaan dhigno annagu hadda waxaan samaynay oo aad aragteen documentiga la magac baxay the beginning of new foundation 6 pillar policy framework 6 tiir siyaasad ku salaysan oo dalka tiirarkii intii ugu muhiimsaneed in laga bilaabo waxa hawsha in la qabto la rabaa waa ay badan tahay liiskuna haddii la qori tagaa waa endless meel ku dhammaado ma laha laakiin maxaa ugu daran waa kuween falaartii isha ku tiilay iyo falaartii salka ku tiilay dee horta lagaa gooyaani bal salka iyo go-aan fariiste fadhigii waaye waxaan ka hadlaynaa markaan 6 tiir markaan keenay ayaa haddana weliba waxaa la yidhi matabaran guurnaa mise taako marka taako ma hubna tabar aan guurno meeshayda geysaba waa 6daani waa weyn yihiin amaan isuginoo bal aan soo gaabinaayo 3 kas guur u soo saarna haddana muhiimadda koowaad ee dowladda ay leedahay waa amniga waa falaartii salka ku tiilawa amni markii la helo familieskan iyo carruurtaan iyo akhyaartaan iyo odayaashaan laxantu meesha ay ku disheen soo noqon lahaa haddii laakiin amni aadan jirin waddada la mari karin cawada aadan hoyo karin qajaf meel haddii ka yeerto ma lagu soo socdaa is leedahay yaa soo noqon karayo waxaan muhiimaddeena koowaad saarnay in
dalku amni helo oo amniga la hormariyo muhiimadda la saaro xoog iyo xoolo waxaan heli karnana inaan isugu geyno amniga sida aad wada maqasheen waxbaan ka bilownay amniga qabashadiisii 60 isbaaro ee magaalada Muqdisho laga qaaday waxay bilow u tahay mashruucaas amniga bilow u tahay يعني لحنا إسبار وبرنتها لكن قالستي دروا وقولوي لكن قول كسي والمحاة لحنا كإسبار ممكن لقاضي قفنا كمدمن قفنا كمدعوين كاسنا وحاسوت الجلية شعبي الصومالية ده سوت الجلية مجالات المقدسة كلها وشيخ عيسى هذا عيسى نردون كا مشير عيسى ريد كا هواي كيسة رأسة عيسى هو ده استاجي أو ويرشي تغيير ما عنده وقت عيسته مركا let's go home ساس وحكي أنت مركا عيد بتلا أليكسون أو طب نروح حبضايا أو لكلاري أو لسود الإناني دحين أي كانتين تجربة هذه اللي بقولستي وحبضنا تجربة صاروا صاروا ده هذه اللي يرادو لبيه لبعض سنة إذا مدينا أمن داود يقول حرق أيليهين oo ay u hoydaan oo hubkooda iyo qalabkooda u yaala ma jirin askarigu qorigiisa garabka ugu jira maanta hadduu shaqada dhamaysto gurigiisu la aadaa qorigiisa waa barkaraa subaxiina qorigiisa soo qaataa wadada kusoo noqda taasi waxay keentaa inaan la kala aqoonin askarigii dhabta ahay iyo midka shabaabka oo wax qarxin raba iyo midka tuuga oo wax dhici raba laanna uniformku waa lasoo wada qaatay uniformku waa dhar waa la wada tashay ama suuqa laga iibsaday waa la soo wada qaatay waxaan go'aan ku gaarnay waxa ugu horeeya laga bilaabay inay noqdaan xeryaha ciidamada in xeryo loo sameeyo xeryahaas inay u hoydaan oo askariga shaqo leh bas oo qori wata oo ka soo baxo ka kale hadduu ka soo baxayo xataa inuu qorigiisa ka soo dhigto asiga oo shacbi oo gacmaraaraca oo ka soo baxo dadka magaalada Muqdisho jooga waxaan ku qabanay hadda Facebook koobaad qoryahooda inay guryaha ku haystaan ama ganacsigooda ay ku dhaxaystaan oo wadada aan lala imaanin face labaad gaari doonaa qoryaha guryaha laga saaro ganacsiga laga saaro la yiraahdo laakiin maanta waxaan rabnaa wadada in qori laga waayo si aanu midka wax qaribaya midka wax dilaya midka inuu wax xado ama wax dhacan raba aanu cudurdaar u helin oo ugu dhax dhuumanin qoryaha caadiga ah dadka aan wax ku dhacin ama wax ku dilaynin ay haystaan si aan ugu dhax dhuuman waxaan dhahnay wadada qoryaha laga waayo mashruucaas ciidamo khaas ah loo xulay bisha January bisha February bisha March oo soconaya benchmarks ama hadafyo muayana oo meel la gaariyo كوي صدق جنوري 26 فبراير كوي صدق مارس كل الإيمان ترتل جاري كون عسكري وعيدك الدولة كترسل وسخاص الوصول حري أي أمن المقدسة واحد سارس اللي حلاس كله تنا شغال غلط قرابين عيد كاس هي اسمها حريهاس وحيقبها هي القرش دولتنا القرآن وحيكون قارتي انتاس إنانا كالمة دبلين آلي أرادين لعق بجت وإلى 6 مليون دولار قاري صار الله بطلق قاري مشروع عاصمة وكبحوا دولتنا لعق تاس مادام أنا دبدا ويديسانين كالمة ويديسانين حقيقي كينيسان لعق تاس دولتنا ولعق الجابدين البوصلين وكجتوا والله إلا محوها بحسان الديال الإرادة مردونا فريد إيقابك تكون بحين إنسان مردوا يكسو قاري ساديال الإرادة انت اسكدف الديال الإرادة دولده مع أمني وادين عاص وحكوا له مهمة لبعض الدولة إصابة أي إن خفاف ونصم عمد بأويجس دينع garsoorka judiciary-ga in reform lagu sameeyo si cadaalad la jaan qaadi karto system cadaaladeed oo maanta duruufaha Soomaaliya maanta jira la jaan qaadi kara
loo helo. arrintaas bilowgeeda waxaa professorkii cabdiwaaxidna maalin dhaweyta uu xamar uu booqasho ugu yimid inuu noo yimaadaan ka codsanay xamar uu noogu yimid mudduu nala soo joogay uu soo noqda haddana uu noqon doonaa. waxaan qabanaynaa shirkii ugu horreeyey dhowr shir oo isdaba jooga oo national level ah oo dialogue dalka sidii dib loogu dhisi lahay ah looga hadlayaa jira. shirka ugu horreeyey waxaan rabnaa inaan ka dhigno midkaas looga hadlayo arrintaas judiciaryga garsoorka Soomaaliya sidee loo hagaajiyaa oo loo helaa garsoor sax ah. waxaan rabnaa dadka mutakhasisiinta ku ah arrimaha garsoorka inaan shirka u yeerno xamar la isugu yimaado 150 ilaa 200 oo xeel dheere ama khabiir oo garsoorka yaqaana inay isu yimaadaan miiska la soo saaro garsoorka Soomaaliya ee halka inta lagu kala fanada la yiraahdo intaan waqtiga la socon kartaa inta waa la bedelayaa sidaana loo bedelayaa dadka qabanaya sidaana noqonayaan waa sidaas. لأن أمنية ما أتكين كرنا ما حوجين كرنا ما جوكتين كرنا هذه أنا سيستم عدالة وبربر سعودة عن الجنوب. هذه أنا سيستم عدالة وشقين يوم وضدك كوكر سنين ورسفي عن لوقا بي عن الجنوب. ضدك أما الواحد بيا أما أيجا واحد بيا. مركزي أنا أقول عمتاز والله إلى ريو ضدتي ضدك إسلام مركزنا ضدك محوك رقاب قدر اليوم ayaa muhiimadda labaad waxaan u saarnaa arrinta garsoorka. muhiimadda saddexaad oo saddexdaan soo xulna ka mida waxay tahay arrimaha maareynta iyo maamulidda hantida dowladda. hantida dowladda weliba lacagta dowladda. Soomaaliya waa dalka adduunka ugu corruption badan. Transparency International Index-keeda meeshaan uga jirno waa meeshaas hadda Soomaaliya عبر عن لنا مركا دولة أنا مدحنا كحالة ربع ماشى سنة سومالي أنت كسر قادم لذا وبيران سومالي ما راح نحكي كجرتاي ليس الله سيساعد ما بحمده قاركيت نلقط تري وأنقار بدنا كمين عن صحيين سومالي وادلك أدوك وكربش بدن سومالي وادلك لحرة قحوتية أدوك قوي Soomaaliya waa dalka burcadbadeed ee jidadka baraha laga mari lahayaa ilaa Soomaaliya waa dadka dhoofiya argagaxa iyo argagixisada iyo soo feer ma aha dadkeenu intaas wax ka fiican ayay mudan yihiin. waana yeeli karnaa waa samayn karnaa waa keeni karnaa waana garanaynaa sida loo keeno. waxaan rabnaa muddo kooban Soomaaliya in ay noqoto a destination to go. meesha ninkii dhaqaale raba ee business uu sameeyo raba meesha uu soo aado kii dalxiis raba iyo maxaan ku yiraahdaa xeebo qurxoon oo nadiif ah oo booliishu ku dhicin raba inuu meesha uu soo aado kii maxaan ku yiraahdaa waxbarasho raba meesha uu soo aado inay noqoto ayaan rabnaa Soomaaliya haddii aan yiraahdo waan noqon kartaa annagaana ka dhigi karna ilaahay idinkiisa. intaas kadib walaalayaal annagu mushaakilaadkeena guda iyo dibadba way badan yihiin sidaan u sheegayno wax badan oo ka mid ah waa wax nalagu tiray ee waxaan la nahay maaha. cilaaqaadka caalamka inaan dib u soo noolayno ayaa 6 tiir ka mid ah wuxuu yahay cilaaqaadka Soomaaliya ay la leedahay dibadda inaan soo noolayno. dalalka dariskaan ka bilownay Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya ayaan soo marnay. Djibouti dabcan waa wada garanaynaa waa traditional support of Somalia. markii dowladdeena burburtay baa dadaalkii ugu horreeyay wadankii galo ay markii ugu horreysay talaab qaaday ilaa maanta oo aan joognana sidaas ay Soomaaliya u garab taagan tahay dowladda Djibouti oo marmarka qaarkood ay qatar ku gashay dowladnimadooda runtii. marka abaalka inuu leeyahay nimankaasi abaal mudi karna maaha. marka cilaaqaad aan ka hagaajinayno oo maynaan tegin waa mahadsantiin inaan dhaanano tagnay waana ku soo dhahnay. dalka Ethiopia oo asigana xuduud dheer 1700 kilomitir gaaraya nalala iyo ku dhow
ayaan tagnay ayadana annaga iyo Ethiopia inaan daris ahaano isma dooran annagu ma dooran inaan Ethiopia daris la ahaano ayaguna nama dooran in Soomaaliya daris la ahaadaan laakiin intaan jirno meeshaan deganeen ayaguna waa deganaayeen inta aan jiri doonana waa deganaan doonaan soo marka ma habboona inaan muxuu ahay 600 sano colaad ah oo maalin walba inaan isduumino ku salaysnay bal markaan inaan isku dayno maanta generation-ka jooga annaga ah inaan cilaaqaadkaasi aan bedelno taariikhdaas aan wax ka bedelno nabad aan ku bedelno danteennaa ku jirta dantoodana way ku jirtaa ayaguna sidoo kale waad garanaysaan dowladda Soomaaliya budgetkeeda inta ugu badan ciidamada lagu bixin jiray number yar oo ka mid ah adeegga bulshada lagu bixin jiray budgetkeenu maraa 70% ciidamadu geli jiray 2% adeegga u geli jiray ciidamada waa u baahan tahay weli Soomaaliya ciidan la'aan ma ahaan karto amnigeeda jiritaankeeda midnimadeeda ayay ciidan ugu baahan tahay laakiin u birtuman mayno ama hadda u haliili mayno inaan muxuu ahay duulimaadyo qaadno aan maxaan rabaa dibadaha aan aadno waxaan maanta u haliilayno waxay tahay dalkeennoo mid ah Soomaaliya oo mid ah degan oo ayada dhexdeeda nolol iyo wanaag u ka jiro waxa aan raadinayna waa intaas ciidan intaas inuu xaqiijiyo ku filanna waa yeelanayna laakiin caalamka maanta dagaalkii qabuuga markuu dhammaado kadib jihada loo jeestay oo ah in la isku yimaado regionally iyo maxaan ku raadaya qaarad ahaan la isugu tago oo masaalix common ah la wada yeesho Ethiopia 9 milyan dad ku dhawaad degan aan bad lahayn 10 milyan aan nahay 300 kilomitir badaan 10 milyan aan nahay 8 milyan oo hektar oo dhul beereedka ku fiican aan leenahay laba webi oo joogta aan leenahay labadeedna webi oo joogtadaana waxay ka yimaadaan Ethiopian Highland wax badan oo masaalixa oo kala bedelo karna ayaa jirta waxaan aad iyo aad ay dhiirigelin kara u siira dadka Soomaaliyeed oo xuduudaha banaankooda ku nool maanta in badan oo ka mid ah noloshooda inay aad isu bedeshay staalkii u noolyihiin xorriyadda ay haystaan dalalkaas talada ay ku leeyihiin kulli wax badan iska bedela maanta sidii hore isu dhow midna maaha in badan oo ka mid ah maanta Soomaaliya way ka nolol fiican yihiin marka nolol fiicnaantaas inaan sii wada kordhino oo Soomaaliya teedana la soo qaado Soomaaliyana waa home for all Somalis حتى حدودها حتى ما يكون يكون هاي Soomaaliya mar walba waxay u tahay muxuu ahay meeshii loo soo noqonay marka qarniga 12aad soo noqoshada Soomaaliya mootoogeena waxa waaye nolosha dadka in la hagaajiyo muwaadiniinta Soomaaliga ah wuxuu mudan yahay nolol decent life ah oo qurux badan oo heybad iyo sharaf leh inuu ku noolaado waana taas hadafka aan rabno inaan higsano haddii aan yiraahdo markii ugu horeysay taariikhda marka taas uga baxo marka cilaaqaadkeena dalka Kenya sidoo kale waa tagnay aadan ugu wada hadalnay hawshu mudday qaadanaysaa waqtina way rabtaa laakiin idadiile iyo fafaalo fiican ay jiro oo dalalka dariska aamin darrada iyo cabsida Soomaaliya ka qabeen inay ka baxdo annaguna cabsida aan ka qabno inay naga baabi'iyaan naga waxayaan waa socotaa taas guddiyo oo ministerial level aan sameynay oo dalalkaas dariska ay cilaaqaadkooda ka shaqeeyo amuuraha amniga amuuraha ganacsiga amuuraha economic integrationka waxaasoo dhan ka shaqeeya haddii aan la yiraahdo wax aan dan noo ahayn ma yeelayno laakiin wixii danteenna ah si kastoo u jirto waa raadinayna haddii aan la yiraahdo intaas markaan ka soo tago dib ugu soo noqo Soomaaliya waad ogtihiin 22 sano xukuumadihii ku meel gaarka ahaa magaalada Muqdisho ma ay dhaafin marmarka qaarkoodna meel yar oo Muqdisho ka mid ah ayaa muxuu ahay soo tagsanaayeen xilliyadan dambe dowladdu ciidan ahaan way u dhaaftay muxuu ahay Muqdisho iyo agaarkooda gobolada ay gaartooda waad ogtihiin laakiin waxaan rabnaa dowladnimada inaan intaan qaadno aan muwaadiniinta degmada iyo gobolka jooga inaan meeshooda u geynaan rabnaa oo ay dareemaan
dawlad inay jirto noloshoodana wax ku soo kordhinaysa aan waxba ka dhimayn dalka waad garanaysaan dastuur uu leeyahay baarlamaan uu leeyahay dastuurkeenu waxa waaye dastuur professional oo dhamaystir u baahan aan dhamaystirnayn laakiin waa aaliyadda dawladnimo aan haysana maanta oo aan ku soo heshiinay inaan ku dhaqanno siina qurxino dhamaystirno haddii aan la yidhaahdo dastuurkaas wuxuu na farayaa dalka in federal laga dhigo mandate-ka dawladdaana wuxuu yahay inay dalka federal ka dhigto dadka Soomaaliyeed ayaa go'aanka kama dambaysta oo xukunka dalka sida uu oolaya iska leh laakiin maanta political understanding jira iyo constitution jira intaba ee aniga aan madaxweynaha ku ahay waxayna farayaan in dalka laga dhigo federal arrintaas waa arrin dastuuri ah annaguna waan u taaganahay laakiin wax badanaa u baahan inaan fahmo geelsa kamale ninkii maqlay geelsa kamale u geliyay inta dabada jafta iska baxay meeshuu tagay geelsa kamale ka yiri oo kala ma aha ma sugin geelsa kamale ilaa uu ka gaaro intii laga yiraa ma sugin dalka federal ha laga dhigo waan ku heshiinay committee-daan ku nahay mas'alada laakiin waxa seel looga dhigaa reer hebel kasta inta baxaan oo buurtaas fuulaan miyay leeyihiin waxaan nahay dawlad goboleedkii dawladaan nahay calool waxay ku boqortay laguma biskoosiyo ama laguma daaweeyo qabiilka la siyaasadeeyey meesha aan maanta joognuuna keenay mar labaad dalka haddii federal laga dhigay xataa yaan la qabiilaynin yaan la qabiilaynin oo yaan muxuu ahay la fasaadinin waxaan rabaa marka inaan idiin sheego annaga committed waa ku dhaaranay waa ballan qaadnay waa qaanuunka dalka hadda u yaallo waaye dalka in federal laga dhigo waa ku shaqaynaynaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego challengeska jira oo inaan wada fahmno u baahan si aan uga gudbo dalkeenna wuxuu dawlad noqday 1960 ilaa 1990 waxaan leeyahay dawlad shaqaysa oo adduunka oo dhan u aqoonsan yahay dawladdaasi 9 sano ka mid ah dawlad rayid ay ahayd intii ka dambaysay dawlad muxuu ahay lagu tiriyo ciidamada inkastoo markii dambe ay ka baxday ciidanka ay ka baxeen dalka iska dhigay soddonkaasna dawladda ahayn dawlad dhexe oo xoog badan aan ahayn markay civilka ahaydna waa ahayn markay militarigeedna waa ahayn dawlad highly centralized system of governance ku shaqaysa ayaan ahayn xukunka qawaaniinta iyo nidaamka iyo shuruucda dalka loo yaallo dhan waxay u adeegayaan oo keliya systemkaas oo centralizedkay u adeegayaan xukun baahsan oo maxaan ku idhahdaa ay kala qaybsan oo awooduhu kala baxsan yihiin qawaaniin tilmaamaysa ama u adeegayso oon dastuurka oo aan hadda ku soo heshiinay aan ahayn ma qabno haddii shalay gobernatooraha gobolka baay ama gobolka hiiraan ama gobolka muxuu ahay mudug markii la magacaabo dalka gobolka uu tago xukumayo wuxuu ku xukumaya ahayd wareegtada madaxweynuhu uu saxiixay oo sharciyadda halkaa ka helayay maanta midii ma jirtaan dhahay waxa marka dadka maamulaya soomaha marka inay meel uu sharciyad inay lahaadaan ay sharci ay ku dhislaadaan haddii aanay sharci ku dhisnayn macno badan ma samaynayso dastuurkeenu wuxuu qorayaa inta dawlad goboleed ee dalku yeelanayo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa go'aan ka gaaray dawlad goboleedyada xuduudaha ay yeelanayaan waxaa qeexaya xeer gaara baarlamaanka go'aan ka gaaray waa dastuurka federaal in laga dhigo dalka lagu amray oo aan ku aqbalsanahay ayay ku taala waa mid labaad ayadana muxuu ahay oo taagan qodobka kale wuxuu yahay haddii aanan lahayn nidaam laba masal haddaan soo qaado masalan dalka dhismihiisa iyo wixiisa waxay ku soconayaan cashuurta dadka Soomaaliyeed laga qaado haddii aanan qabin qaanuun loo tilmaamayo muwaadinka gabadha Soomaaliyeed
السوق بيدبا عانها كنسته عشوطة لقى قاعدة ميقى بيدبا دقمة بيدبا كلها هاي قبل كباي ميقو كلها هاي دولة قبلاتكم ميقى كلها هاي دولة الدحسة ميقى كلها هاي سوق قبصنا من البري محانا كالهبي هدي أنا وقول مدة لبعض مثل كان سوق عظم هدي محان كيرا داي دقمة بورة برتي أو عير شلال عم قاصد اللي كبر سين هو دايجين هي قاضي مصاريح الجيش واحد ناقرة المامي هداني جين واحد عصب أو كونفليكتي حراب عصب مال أي كتر أنك تصوم معه سوق قبصنا العقد ما أنت أنا أنت الملك بري مدحونا جمهورية الصومال وريتان جو سو صار او يراده دكده بوصاص عشوطه laga qaadayo boqolkiiba 50 dawladda dhexe iskala xamra loo soo shubo lagu daawoobayaa maanta awoodaas wax ay farayo tilmaamayo qaanuun ma jiro waa laga yaabaa hadda odayga maxamed dacwaabo waa shay bal hal si lacag in la yiraahdo waa laga yaabaa laakiin qaanuun tilmaamayo aniga awoodaas siinay inaan dhamaanta ma jiro قانون كرأو أو ريالتي نبتة مانتا مدحوين فرولة وديدة إنه أوصاص يالانا مجنو لكن understanding كنتو يعينا بالقاب وضبوجونا إلى نظام كاس يتوليس كاس أنكين إنه هكذا إمامي مدة بيسو أو مهمة لوامحة محا حكمك مقدشو يسنتر كدولة كلية حكمك مقولي ولا باهنة محل يري لو مدهن حكم كسنتر كمقدشو دولة دحوا على قاعدة لكن كوح يرى أنت قاعدة من هالكان الله فريستا أيضا لا شكوا هاي سنيسو معنى ما سنيسو حكمكم وإنه ليس لهذا ضدك أو أطلع ضدك وحوا حكومة لنا حكومة وضدك حرمنا دولة أنا وسياستين كوباتي كاي ضدك الصوماليات إلا إمباور جريو oo ay go'aan gaari karaan aan emotions عاطفة aan ku salaysneen qabiil aan ku salaysneen aan loo soo booro xaftada heerada baladana yirina baladana aan loo soo dhig maslaxadooda meesha ku jirto inay go'aan ka gaari karaan caliya maslaxadeena ku jirtaa muxuu abdi kuma jirto inay dhihi karaan fursadda la diidan yahay dadka in la siiyo waa midaas oo anaguna leenahay war dadkan hal empower garay u magacaabayno وحيمينه قان وقاربينه لكن متكر إنه دورك أنت كيما قان وقارب مرة بنا أيها هلا صير فرصة أي قان وقارب كلام فيقول لي كلام على نوم حقوق نوم تلنا عاشا نوم تلنا أنت أصدر جديد ورا ليه كنت مكان إني شو بطل لاين كماشي على هواي ده أنت أسكت فرع سنين أو سيدا صديق لي مصلحة إلى هاي حكم إيجاري لهاي إن الإيجاري كان أركو أو مركا هذا غير بنا هاي تعداد المجرى أساس أنت تقول راني ضدك مشغولين يعني السجى دي ليه ماشي وحيا لاي وحواي وضدك كان ولي جيدا محوا على سوق الدريني قابدرك الأمم القطب غير بلادنا ولي جيدا مرة أنت الله بالفيا ضدك كان واحد مصلحة يكون جارين مرة ضدك فرصتها للسيو دقمدان قبائل الصومالية دقن قبائل كدقن وإسقرانيان هدي كلا بديين سيد وكلا بديين إسقرانيان جيت كاورتشيس انت فلسطين انتشران شن لواتن كاقف أما شن توقع قفا كامسل دقمدين النوعة أيضا نوتا لنيو أيضا نوتا دورن إن دي كلانا قدنا ماشا قصو عمر ربنا ماشاس أنا مركب فضلا أحيان لون نجد نقلان البروباغندا هي الدعاية إسكام عيسى ما زالت عن السوق هذا وحال لجري وأدلوا ليبي بين فكتين روني ما قال تالي مدحونها بلدوينو انتو تجي يا وحوي غير بلدوينو ما أمر سميستا غير كسماين أنا أبو سماينينو واحد جرمه warkii aniga aan baladweyne ka iri asoo maqal iyo muuqaal oo duubaya waa been warkaasi waxba kama jiraan ma dhihin inaan dhahno diyaar u yihiin dadka Soomaalida oo dhammaan madaxweyne u ahay dhammaantooda rabaan inay guuleystaan
waxaan rabaa inay awood u yeeshaan ay ku gaari karaan go'aan aayahooda iyo ilmahooda cidda u talinayso ay go'aan ku gaari karaan nin marka awoodi kari waayey ra'yi siyaasadeed inta la yimaado dadka inuu qanciyo oo wax u sheego oo waxqabad uu tuso oo ku gabanaya reer hebel haddaan nahay reer hebel haddaan nahay waxba kuma jiraan wax ka jira ma jiraan qabaa'ilka soomaalida dhammaantood sharaf iyo haybaday leeyihiin waan ka soo quusannay soomaali haddaan nahay waan ka rajo dhignay wax reer gaara u roon oon reerka kale u roonayn inaan helno oo aan soo dhignay waxaan raadiyohaynaa qoraahda waxa xigmadda aan isticmaalaynaa wixii hooyada uurkale u roon ayaa cunuga uurka ku jirana u roon wixii soomaaliya u roon ayaa reer kasta oo soomaaliya u roon waxaan soomaali u roonayn reer gaaray u roonaan karaan ma jirto marka waxaan leenahay aan ku mashquulno aan jirinno waxa soomaaliya u roon maanta maalintaasaan joognaa waxaan rabnaa wax soomaaliya u roon soomaaliya wada guulayn karo ma dhacayso reer gaara iyo degaan gaara iyo gobol gaara inuu guulaysto soomaalida inteeda kana ay fasho waana soo taabannay waa soo taabannay walaalayaal yacni degaanaa jiro maanta soomaaliya ku yaallo oo xasiloon oo deganaansho leh laakiin haddana soomaaliya oo midahoo dowladda wixii lagu heli karay ma haystaan way ka maqan yihiin hargeysa ka soo bax muqdisho ka soo bax muxuu ahay boosaaso ka soo bax beledweyne iyo kismaayo midkaa doonta ka soo bax daaradda haddaad soo raacda soomaaliga yaa tahay iska daa intaas baasaboor maraykan haddaad qaadata xataa soomaali america magacaas marka naga dhexeeyo oo aan naga haraynin aan qurxinno oo mid loo soo istaago caalamku u soo istaago aan ka dhigno waa ka dhigi karnaaye waxa aan u taagannahay waa intaas degaan gaara oo soomaaliyeed oo aan wax u diidannahay ma jiro midaan wax si gaara ula jecelnahay ma jiro waxaanan aaminsannahay soomaaliya ma kala guulaysan karto ama waa isla guulaysanay ama waa isla guuldaraysanay waxaanu rabnaa soomaaliya inay isla guulaysato oy caaddaa wada marta haddii aan la yidhaahdo intaas kadib nidaam dowladdu siyaasaday dejisay process ay habaysay oo waqtiyaysan oo waqti leh oo lagu gaaraayo nidaamkii federaalka ahay processkaas intaan ku jirno baarlamaankeenna wuxuu fursad u helayaa shuruucdii iyo legal frameworkigii necessariga aan u baahnayn inaan u helno waxa aan samaynayno inta aan diyaargaroonayno oon dadkeenna diyaarinayno oon degaanada diyaarinayno oo aan dadka muxuu ah empower garaynayno baarlamaankan wuxuu noo samaynayaa shuruucdii kalfadhigiisii koowaada hadda dhammaaday fasaxuu qaatay bisha mars labadeedu soo noqonayaa markuu soo noqdona xukuumadda waxay miiska u saari doontaa haddii aan la yidhaahdo shuruucdii necessariga ahaa ee loo baahnaa kuwooda ugu muhiimsanayd waana halkaas ayaa ka socon doontaa dowladdu intaas kadib dhinaca sharciga iyo dhinaca abaabulka waa sidaas si abaabulkaas ugu dhaca marka dowladdu khaasatan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya 11 gobol ee ku yaalla dowladdu waxay u dejisay barnaamij dib loogu abaabulayo oo xukunka dowladnimadii dib loo gaarsiinayo degmooyinka iyo adeegii bulshada intaba degmo kasta oo 72 degmo ka tirsan waxaan rabnaa in laga sameeyo 5 mashruuc ugu horreynta mashruuca koowaad hal iskuul inay yeelato degmo kasta mashruuca labaad waa hal police station inay yeelato kan saddexaad waa hal rug oo caafimaad oo carruurta laga soo tallaali karo uyawgii muxuu ahay dowladnimadu meeshay uga bilaabanaysa berri dambe iyo bishi soo socoto ma wada qabsoomi karaan waxaas oo dhan laakiin taargetka dowladdu wuxuu yahay 2013 in la qabto mashruucaas haddii kalena la dhaweeyo oo wax badan aanan ka dhignaanin haddii aan la yidhaahdo marka waa foundationkii waa waxa waaye goboldhiggii dowlad dhisidda soomaaliya waa intaas kadib halkaasaan ka sii kobaynaa
مهمة الدولة أن المرحلة هاي هدفك وحاصل loo sameeyo waxay tahay dalka in laga bixiyo relief iyo stage relief oo mucaawino iyo bariis isku halgeeyo in laga bixiyo oo recovery dadku inay soo qabtaan in la gaarsiiyo labada sano ee soo socota di aan yiraahdo Soomaaliya relief inay ka baxdo oo recovery stage ay gasho labada sano ku xigtana waxay Soomaaliya development inuu bilaabo mashaariic waaweyn iyo infrastructure kii waaweynaan dib in loo bilaabo xooggiisa oo bilaabina hadaba laakiin xooggiisa dib loo bilaabo wadada afarta sano ee aan aniga la doortay oo aan joogahay aniga iyo xukuumadda iyo baarlamaanka waxaan heshiis ku nahay oo aan ku kala raaricin oo aan isku qabsan doonin haddii aan la yiraahdo dalka in stage-kaas laga qaado stage-kaas kala la geeyo mashaariicdaasna la dhaqan geliyo afar sano kadibna dadka Soomaalida ah one man one vote adeer hebel oo balkaale soo noqo oo markaan baarlamaan noo sameeyo inaan la dhigin haddii aan la yiraahdo odayaasheenna qiimaha badan waraasa badan saaray Soomaaliya mar walba jiiray soo gashaa isgoyska ee ka dhaqaaqay ku soo noqotaa لابد عرض مركان سوق تبني رير بلان وشرني قضياش قطن كان كامل وحمد عمي برلمان كهذا صار مقعد سي عند دون الناس وعن لابد أنا كده شراء مفرد سنة اللي هذا محوها اندقافي لابد أنا فدني قضياش أنا اعتمد عمي نوع مقعد محوها برلمان سديت سنة كبعد حضاني لابد إلى بيتهم قضياش هذا الأمير وعندنا البرلمان كنص مقعد this time مكان هدي إلهي يراده قضياش سلوك جمينه ولا إصدارنا عما سيدي هذا ركتين برلمان كمان دويتو مدحوينها يقدموا برلمان ودورني very transparent دورش سيدا سوكرا دقمة كستي يتولى كستي أنت صندوق الجيو إن قبر والبا هيدو أرجع إلى شيء عد كهذا كل دارنا دولة لماذا ضبطها الديمقراطية ضبطها أو وضعتها ماشى الموضوع الرئيسي ماشاس وضد كور الرئيسي كبدلنا وان قرننا وان نوع على مسنتاي وان مرنا بأليرا أنت صديق أن تاسي مستقبلك يتجاه أو سعودي كومن هاي كلام بنفكره وحنا رأينا وصل لمكان أديك الصومالية وحدوها هذه وايف لاين يعني وحال إلى من قضية وحو تعبيري صوماليا إلهي يجعل مركز تقوي دبا طلب كل طبع إلهي فرصة الصيام فرتوحي دعاي يجيب كده عدل كده دعاي أنا يكون مسؤول صوماليا هتانا على إلهي عاشا إلهي معنا بدل من صمينيس أنا لا صميني هدي أجنبي أو جرحت أجنبي أنا كامل هدي أنا جينا أنت بدل أنا بقعمين نكوه الله مركب مسؤولية داس إلى اعترافنا وأنا اعترافنا وانقاذنا ما أنت ندلك إن أنا بكريا بس كستا وين الجرجال كذا والوانا لكاولين كذا بسوا أنا لسين كذا قرب وأنا لسين كذا وحمد عنا وأنا لسين كذا لكن هوش أنا ما قبل كذا هوش أنا نجرب إن قبلنا حتى هوش قبل وينه wax kastoo la siiyay wixii khasaare noqonaya sheekadii ay Soomaaliya waa qabrigii mucaawanada ayaa marka dabadana ku soo dhamaanayna waa waxyaabaha aan dadkeenu magacaas wax u dhow ma muddo inaan ka maarno oo aan ka baxno ayaan u baahanahay ilaahay idinkiis waan ka baxayna marka warbajoogta Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa 70 meeyadii markii abaarta dabar dheer dhacday oo dhaqaale darrada dhacday Soomaaliya ilaahay wuxuu u gaaray فرصة وحصل بحذاء خليج الآن يعني سعود عربي يوم حاول كاسان الأهلي وهذا لسه حماشي ويسيس الصومالية وبيك الناس اللي بيصدر ضد بدنا كنا ورانا ده كان موجود اسمه واحد بدنا نقول وصل وكسوبي مركي حتى اللي بعتذر عليه قال بربورينا وحاول بحثنا
والبجوب تعليق عن اللي بحصل هذا ما كوا كسب من إلهي إذا كيس كرايسس قراراسي وكبحنا سومالي ما كان بقولك الدولار أو محاكم هذا أييلو ديري وحكويني أبانتها وحكويني أبانتها بسماعة وحكويني أبانتها وإذنك أقوامتي نوا أقوامتي إني إنه أي فرصة أهلين أو كوي أي كسر تجين سومالي جوجا أنا أهلين واي وحي سومالي ما تأبانتها مسألة تعالوا حين تهددك أديك إن بدنا إذا كملوا حسوليان سومالي أو دقن أو نبضة وأمني هايسته أو الله إله دلك وافع ناده نوضع ديره ولا آذي سومالي أنا بحسولي سائلك إن أنت صون نقطان أدجسان لوضع مركة كيوغي مالك أنت نقصان دلك دجينيسان بس دلك أنتو كده سوليسان مكاسة إيمانيسان أنا إلهي إنك سبحان كشقينا سومالي إني نقطة مرة بسوا نقول كرتارة دي الله لكن ورد هذا اسمه هذا يهرمر كذا يصور كبشة هذا عادي كهيد سويسا هذه إلهي ما أنت مقدشو نرش كم نور يسوق ويا إن بدنا وكم وربجوبتا سبب واحد وتعالى كوي على مقالة قاركير أو كوا أو بعث سنة ندخل بجوبتا أحسن مية سوبر ماركت يلا مقالة متشكية لا سيرو كله نحوها يقول بجوبتا أحسن مية كوا كلام عبد السعودان وريال استيت وحين اللسان مركا إن سي وليبا سيستماتيك ألوي ماذا أو أوجود الأقارب لا يستدعي سوقي يعني أنه عارنا ماركت إيكونومي مدح بنان أو برايفت وآدي الحب بدي هاي إندي بلسك الدولة المصرية دولته ما أودي كرتو إن الدولة تلبسته هديه يسكت بيدنا وقت آدي أبو بارك وقارنه ماشي كده وده وأتقرن إنسان أنتني مركي هالك مسؤول آدي نيروبي صوت تحت سجاشمية ورانتي إسلي سليو كانجرت ما أنت مسليو أكتر سيدا وحان يلو هنا محوها جبة وفرت السودان بسوهنا حتى لو وقتك عن صوماليا بسير هاي أقوامتي وأنا بجرتها سببت أسبابت أن أولى شيء إنه دلك الدرس كنلعب وحان أركي إنه موضة صوماليا ودكتي دكتي لنا انتربرينورز إليهين صومالي بديه لكم في النهاية مال محوها وقاضان وباهين مركا دلال دريسة أو صاحبها أو لو قاضي كرو محوها انتربرينورز كاس يدقالها على سنة لقيك أو قناعسي وفريها إلا أبورا مصلحة صوماليا كنترتو مقدشو هي كسمايو هي بربرو إن لو فرو إلى محوها كونغو هي محاكرة DRC هي سنترال أفريكا إنه أفرنتو أو حرنا قناعسي وماشي صوماليا كإيماني أو ماشي سجاران ربنا دريب كان أعلنا يغير عن قبنا والبلاران تاعي هل كتول أما آلين إن هاي سنة بس بدل ما هاي سنة قومت وانوير تاعي قرب بدل ما هاي سنة ولي صاحب بدل أطعدك ماليهين إنك صعبت عن بلاد هل ميدان قبنا وحان قبنا 100 سنة وأن سنة هاي ماشي سنة جاري قبنا عاوة مكان إمده وحال إيشاري ولا رسول ماليين وإماتن كيغا أن أدو فأحسن إني جران آدي أنا أقول فأحسن هاي هدي أن استغراف أمكر الرأي دولان هدام تبين ليال قادر إنه أنا قرأ كا قادر والله أن جارني وعيارتي أيوة نحن سلاس يالن أنا وأقدرنا رنتي وحماتا إيو محوها أنا قام مجرو أنا يجارسي فرين وصاحبتي وحا أي تبنا يعني إن أن كره هذا النام ديالنا أو أن كبر العلم أو هذه أن كبر برنا يقول أن إنسان كبر أونه أن رأي هذا دعنا ديالنا
laakiin xaajadeena yaanay noqonin durwaaga iyo carruurta weligood isma arag waana kala baqaan waa loo kala sheekeeyey yaan durwaagii iyo carruurtii oo kala noqonin aan iswarsanno loo sheego inaan diyaar u nahay inaan intaan la fadhiisanno la doodno waxa jiro dhabta aan qabno u sheegno haddii ayaguna aan dhegaysanno waxa ay noo sheegeen waxaan u sheegnay haddaanan ku qancin oo waxa noo sheegay ay noo sheegayaan ay nooga garleeyihiinna inaan intaan ka garaawno wixiina bedelno ayagana raalli aawaan dhahna diyaar u nahay laakiin yaan naloo kala sheekayno dadka soomaalida yani aan iswarsanno haddii aan la yidhaah alla igu salaamo waana mahadsanyihin intaas kadib aad iyo aadaan idinku mahad celinayaa dalku waana wada sugayaa annagana adikaan idinsoo fiirinaynaa waxaan rabnaa in naloo dhaga nuglaado baasaa la keena haddaan dhahno in la keenaan rabnaa alla soo guura haddaan dhahnana in la soo guuraan rabnaa saasoo iskuma ogin aad iyo aad aa u mahadsantihiin sharaf iyo cizi ku noolaada